salaamay dhammaan gobolada togdheer iyo dunida dacalada inta dada ku noolba bacda salaam waxaan halkan kula diyaarhay barnaamijkii toddobaadlaha ee la magac baxay dhalinkaab waxaa maanta barnaamijkan ugu martay Hibaaq Farxaan Ibraahin oo inoogu timi halkan iyo barnaamijkii dhalinkaab kusoo dhawo walaal Hibaaq walaasha Hibaaq intaanad hore aan halkan oo iman maxaad ka aaminsan barnaamijkan adiga aan garanay hadda soo ajibtayba والله waxaan ka aaminsanahay barnaamijka wax ka korsan karo hayo walaasha barnaamijka sidiisa waa barnaamij su'aalaha jawaaba marka ma isku day kartaa inaad waxyaabo halkan ku qoraad ka jawaabi karto hayo walaasha barnaamijka qodobadiisa hadda waxa gaar taabto kullu waxa tahay hal mar baad noo soo ajibto markii koowaad hadda la socon qodobadii lagu yaqaanay dhalinkaab marka walaa wax lagu weydiinay 10 su'aalood 5 su'aalood ka horeeyay inta ku jirto wax fursad ah malihid marka su'aasha lixaad soo gaadho hal fursad baad leedahay labada waa goobo geli laba kamid ah laga tuuraya laba kamid ah marka laga tuuraa doorata hadda su'aashaad sida ku socdo saasad kula saajibaysa aad kula soconaysa barnaamijka hadda halka hadana waan ku hambalyeynaayo maxaa sheegay kun tirada wanaagsan baan ku leenahay marka barnaamijka su'aashiisa koowaad waxa ku oranaysa inta jeer ee quraanka lagu sheegay macalka waxa kula taagay su'aasha jawaabteedu macalka أنا هرت أخوه الرئيسية واحد وش بيقول A waa 2 jeer B waa 3 jeer C waa 12 jeer D waa mid naba 12 jeer هي وطنها سنتي ساشة وصحري وعن كل شيء أنا هرولا سعون كرتو برنامجك ساش لو ضحك ورنسا أنت ترى القرآن كله وش جاي معي ساش كود وقابل طبعا ساش لو بيد وعفرت طبعا سيد ومد نبا اسكوبسو معي يا معك واسكو يجين اسكوبسو أفرتي هل فرصة استحاب الله يوعد سؤاشا انت تشاري قرآن كان لقول شاقا معي محان شاقا ما ايه با وقوبتهم با ما بي با وافرتهم با ما سي با ما تضويتهم با ما دي با ومن با فرصة استحادة تقول ليستو waxaan jeclaan hore la socoto su'aasha saddexaad waxa ku oranaysa ninkii loo yaqaanay guray wuxuu ahaa banduulaha ma wuxuu ahaa band hogaamiyuha waliba gabayaya mise waxa nin dawladda ka tirsan mise dhiyo midnaba muuhaynba haye su'aashaada afraad waxa ku oranaysa maasha Allah su'aasha afraad soo gaadhay hal mid baa kaga hadhsan fursadihii aad ku geli lahayd waxa lagu yiri gabayaagu wuxuu gabaygu sidiisaba wuxuu ka kooban yahay ma habdhacba b ma luuqba c waa horis iyo hoojis d waa midnaba su'aasha aad kaga fiirso jawaabteeda ma fiin ya midna hal fursad ku noqon gabaygu wuxuu ka kooban yahay habdhac b luuq c horis d midnaba الله هذا الشيء واحد هيستاجان سؤال شافرنا والمرسى مسكح ودبو يا ربع انك سلكتي وتقص حنتي تركا دنبا دبو قادتي كل سؤال سيده دبلق ما دغدغه maxaa sheegay go'aanka ugu dambeeyay sax ku noqon su'aasha shanaad marsa ma sha Allah su'aashaada shanaad waxa qoranaysa habka circulatory system ka jirkana ka dhaca amba saad u taqaanaa dhig wareegu wuxuu ka kooban yahay 3 oo A B may A iyo 4 B iyo 3 C iyo 6 iyo D iyo midna abureega dhiga waa 3 hay way waa su'aashaadi lixaad halka waxa kaaga bilaabmay chance-kii hadii aad su'aasha aad khalado hal chance lagu sameeyay kaasoo labada goobo gelida midhaan laga tuuraayo waa su'aashaadi lixaad inta jeer oo su'aashaas lixaad waxa ku oranaysa inta jeer hooyada xaq la siiyay waa 2 jeer waa 12 jeer waa 3 jeer wadiyo midnaba xaq hooyada حاجة ما تحدث كنا ويرد رقم ومنا ما يقول لها chance فرستا سأش اللي حنا والمرسى ما شوف يعني لا ولا قاعد توري تذكر وذي لكن كبارة أنت فرتا والله كم
kaa tuuray waxaan kaa tuuray eeyo 2 iyo d midnaba waxaa isku soo hadhay eeyo 12 iyo sidoo kale b iyo 3 waa jaanis ugu dambeeyay haddaad khalado oo sidaa iyo rabbil caalamiin halkaas ka sidooyinkii aad ku lahayd indhalikaab waan kugu habaleeyo halka fiican soo gaadhay maadaama aad sig soo gaadhay kulanti dambe wanaagsan baan ku leeyahay walaasha qaaday waxaan rajeynay doonaa maalinka ku xigtay inaad noo dhamaystiri doonto 10 lagu talagalay halkaas inuu ku xidhay barnaamijka dhalkaab halka ay markaas halkaas ayuu ugu eegyahay barnaamijka dhalkaab la magac waxyaalo ah isla socodsiinay xamda cabdiraxmaan oo ku magac dheer أبغى ندعك كنا